madaxweynaha waddanka Ukraine Mr. Zelensky ayaa shacabka ku booriyay inay hubka qaataan iyadoo dagaalo culus ay ka socdaan daafaha caasimadda Ukraine Kiev. dagaal jidgooya ayaa ciidamada Ruushku ay kala kulmeen magaalada caasimadda oo ah waddanka Ukraine Kiev iyadoo xalay ay ka dhaceen rasaas xooggan iyo qaraxyo. madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa ballan qaaday inuusan isdhiibi doonin oo uu sii wadi doono dagaalka uu ku difaacayo dalkiisa. ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay la wareegeen magaalada Mariupol ee dalka Ukraine ayna la beegsadeen kaabayaasha ciidamada ee dalkaasi gantaalada cirka iyo badda. Mareykanka ayaa sheegay inuu cunaqabatayn doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Meta oo ah shirkadda ugu weyn baraha bulshada ee Facebook ayaa ka mamnuucday warbaahinta waddanka Ruushku inay xayisiisyo ama lacag ka sameeyaan barteedaasi. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 50,000 oo reer Ukraine ay u qaxeen dalal kale tan iyo markii uu dagaalku bilowday. xaaladda waddanka Ukraine ayaa u muuqata mid faraha ka baxday iyadoo ciidamada waddanka Ukraine ay weli sii difaacayaan caasimadda waddankaasi oo u muuqata mid gacanta u galaysa dowladda Ruushka. ciidamada NATO ayaan iyagu weli wax gacan ka geysan dagaalkaasi halka Mareykankuna uu muuqdo inuu ka muquurtay dagaalka. laakiinse xaaladda madaxweynaha Ukraine ayaa u muuqata laba daran mid dooro.